tabare uma helin aniguna utubiyoonkiisa ano 72 sanaan jira waxaan salaadii u kal lahaa inaan dhagax la wara bixiyo oo ku biilo dagadiisa xaarka iyo kaadida gacantaada uga dhagaysaa maya markii aan ugu tabara fiicnaa oo aan qaaday oo aan dabay inaan xoolo u xaraasho oo aan anigu intaa la rafaadayo ehel ugu soo kamaray waxa iga soo gaaray abaartii dabeedna abaartii isagii iyo anigii iyo adduunyadiiba hilfahay u qaaday ilaa abaartii intii ka dambaysay halkaasuu yaalay cali nasar jaamac oo hadan yar ku nool kaam ku yaala duleedka magaalada gaalkacyo ayaa la ildarna xanuun ka haleelay xangullaha kaasoo 7 sano dhulyaal la yahay cali ayaa hooyadii iyo aabihii ay ku dhinteen dagaaladii dalka ka dhacay xilligii burburka sidoo uu inoo sheegay adeerkii oo ilaa xilliga gacanta ku hayay haatan waayeel aan isaga waxba dhaamin baasha jaamac salad ayaan awoodin inuu isbitaal geeyo wiilkoo adeerka u yahay waa 72 sano jir dhagax jabinta ka si uu dabaro nolosha wiilka oo adeerka u yahay bulshada islaamka ayuu ka codsaday in lagu taageero lacagtii uu wiilku ku geyn lahaa isbitaal dalka dibadiisa ninkan waa nin agoon ah marka hore aabihii iyo hooyadiiba isku mar bay dhinteen isagoo hooyadii xambaarsan tahay dagaaladii ahliga iyo ku dhintay aabihii iyo hooyadiiba isagana meeshiiba laga qaado marka hore waa ninka saasa markuu barbaaray ku soo dhawow raadiyo daljir Soomaaliya awalan adigoo ku bilaabaya magacaaga waxaad faahfaahin naga siisaa wiilkan xanuunsan xilliga xanuunka ku dhacay meeshuu ka soo raacay inta uu xanuunsan bismillaah marka hore waxaan salaamayaa waxa iga soo gaaray abaartii dabeedna abaartii isagii iyo anigii iyo adduunyadiiba hilfahay u qaaday ilaa abaartii intii ka dambaysay halkaasuu yaalay gurigow hadda yaalna nin islaamaa leh mana kacayo mana hadlayo xisna male maskaxna male alxamdulillah inuu wax ka qabo wax tabara oo dhaqtar oo aan u helay inaba hawle kaatay ma jiro tabara uma helin aniguna utubiyoonkiisa ano 72 sanaan jira waxaan salaadii u kal lahaa inaan dhagax la wara bixiyo oo ku biilo wax dhaqaala oo aan u helayna ma jiro ehelna uma helin hay'adna uma helin in badan baan u gudbiyay ama hay'ad han noqdo ama dadweynaha islaamka han noqdo midna wax igaga soo noqday ma jiraan haduu dhaqtar helo caalamiga waxaan qabaa in la heli lahaa caafimaadkiisa ama xadullaha han noqdo ama calool han noqdo ama xis han noqdo haddii la heli lahaa dhaqaatiir caalamiga waxaan qabaa in xanuunkiisa la heli lahaa nin dhalinyaro xoog labo ahaa nin wuxuu ahaa macnaha ninka agoonka ah ahaa xamaalka iyo waxyaabahaas markii uu u shaqo tago dadka ka xoog badan baa la diriri jiray waxyaabo badan gaarsiin jiray sidan sheekada ku hayo inta xoogsaday iyo dagadiisa xaarka iyo kaadida gacantaada uga dhagaysaa hay'adda samafalka iyo dawladda islaamka iyo Puntland iyo Soomaaliya waxaan ka codsanayaa qofka aabaha iyo hooyada aan midna lahayn aniga isageena aan isku duldhimanay waxaan ku codsanayaa marka hore ilaahay baan codsanayaa ilaahay inuu caafimaad sareecana siiyo marka labaad ummadda waxaan ka codsanayaa islaamka iyo hay'adaha samafalka iyo ummadda Soomaaliyeed iyo Puntland iyo Soomaaliya intaba waxaan ka codsanayaa in la iga caawiyo ninka way isku liidanaa aniga iyo isagu inaan isku dulmaynaan taaganahay wax kale aan ka shaqeeyana ma jiro ma mara xaar dhaqayo iyo maradiisa dhaqayo iyo mara afka wax ugu gurayo wax adduunyada hayaan ma jiraan biyahana hadda caagadan ku wadana waxa ka keenay haanti biyo maxamed ismaan aadan warbaahinta daljir gaalkacyo bishaaro macmiil adeega akoonto akoon ee bangiga salaam waxaa lagu soo kordhiyay in bangiyada ay bahwadaagta yihiin bangiga salaam sida salaam Somali Bank, Dar es Salaam Bank iyo Salaam African Bank oo ku kala yaala koonfurta iyo waqooyiga dalka iyo dalka Djibouti aad u wareejin kartid ama dhigan kartid lacagaha ku yaala bangiga salaam si bilaash ah haddaba si aad u fahantii qaabka loo adeegsado akoonto akoon adigoo isticmaalaya teleefoonkaaga Golis fadlan raac talaabooyinka soo socda ugu horeyn ka dooro sahalkaaga Golis lambar 8 oo ah Salaam Bank dooro lambar 5 oo ah akoonto akoon geli akoonka lacagta u wareejinaysid ee Salaam Somali Bank ama Dar es Salaam Bank ama Salaam African Bank markii ay gelisid faahfaahinta iyo lacagta waxaa ku soo dhacaysa lambarka xaqiijinta oo ah OTP number
dib ugu soo noqo lambar 5 oo ah account to account kadibna ka dooro lambar 6 oo ah hubi account to account geli 8 lambar ee fariin ahaanta kuugu soo dhacaysa hambalyo macmiil waxaa ku guulaysatay lacag wareejintii waxaana kuu fududeeyay bangiga Salaam